xaqiiqdii jacaylka dhinaca keliya ka socda waa mid aad u xanuun badan. dadka ugu xanuunka badanna waa kuwa aadka u jeclaaday dad kale oo aan jacaylka la dareemaynin lana daryeelaynin. jacaylka dhinaca keliyata ah waa mid dhaawiciisu daran yahay, ilmadiisuna badan tahay, hilowgiisuna joogto yahay. runtii jacaylka dhinaca keliyata ahi waa dab kulayl badan iyo ilin sabab la'aan qubanaysa, waa hurdo la'aan iyo aamusnaan iyo hadalka dadka kale inuu ku dhibo, waa murugo joogto ah, waa sugitaan ballan la'aan ah, waa hirar xasuuso ah oo xanuun badan cidina aysan kugu wehlinaynin. maxaa yeele waxaad jeceshahay qofaan adiga ku jeclayn, waxaad aad u danaynaysaa qofaan ku daryeelaynin, waxaad aad uga fikiraysaa qofaanan ku xasuusanaynin, waxaad u ilmaynaysaa qof faraxsan la'aantaada, waxaad in badan sugaysaa wakhtigaagana u huraysaa qof aan kuu soo soconin balse ismashquulinaya si aanu kuula kulmin adiga. ogowna waxaa xanuunka sii siyaadinaya xasuusaha iyo rajada soo raagtay ee aynu u hayno qofkaas aynu u hibaynay qalbigeenna si aanan daryeelin. ugu dambayntii ogow qofkaasi wuxuu ku yahay noloshaada derbi kaa qarinaya farxad oo idil, kaagana imaanaysa xaggiisa murugo joogto ah. dib u xasuuso inaad tahay qof sharaf leh, qofay boqolaal qofi rajaynayaan inay maalin uun la kulmaan ama ay xidhiir la sameeyaan. marka waxaa kuu muhiima inaad go'aan qaadatid oo aad ka soo laabatid xaaladihii madoobaa ee aad dhex dabbaalanaysay. jooji ilmadan socota sabab la'aanta, jooji jacaylkaagan ku baxaya meelaanan u fiicnayn oo aanan u qalmin, jooji murugadan ka qaaday quruxdii wejigaaga, jooji fikirkan kaa mashquuliyey howlahaagii kuu muhiimka ahaa, jooji oo jooji. haa, waa sidaasi xaqiiqadu. meel cidla ah fadhiiso, la sheekayso naftaada oo dib u soo bilow hayaanka noloshaada. go'aan qaado oo fursad sii boqolaalkan qof ee kuu hilowsan adiga. samayso nolol qurux badan iyo lamaano ku daryeelaya oo kaa dhaya dhammaan dhaawacyadii aad soo martay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.